السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن هانتين باخيارتنا داونا ساي كسر دوادا مركلة يا برامج كين يعرمها بالشدة وتضبط كيف حال مركلة حتان شاشة مقبهية عن قبض عصنور فور تي في برامج كين أرمها بالشدة يعني تضبط كستوت سوق عنا أرمها كتاين بالشدة دحتة إسلام مركز سنة أوباهن إلا جحد أم بوحك قبشة أوباهن تضبط كان برامج كوحين أو مرتيا مختار عثمان الله يقانو مختار حاجة وأنا أبوان لأن يرى يسود كلام عن وحكدجة dugsiyada gaarka iyo kuwa dawliga ee ka jira dalka Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa toddobaadkan hadda barnaamij waxaan ku soo qaadanaa xaaladda dhabta ay ku nool yihiin bulshada qaybadeeda kala duwan iyo bal xaalka dalku halku marayo ugu horeyn abaan ku soo dhow barnaamijka iyo sidoo kale NTV-ga Badacasba aad iyo aad baad mahadsantahay Khadar waan dhawahay adigii TV-ga aad baan idin salaamay aad baan kaga qaadnay waan ku soo dhaweynaa ugu horeyn balanteeyaan qaybaha kale ee barnaamijkeena aynaan galin waa kuwa mukhtaar xeego taariikh nololeedka oo kooban mukhtaar Ismaan Alcilaabe oo lagu naanaysi og yahay mukhtaar xeego waa muwaadin reer Soomaaliland ku dhashay Soomaaliland ku koray ku barbaaray waxbarashadiisii dugsiga sare iyo heer jaamacadeed ku qaatay isla Soomaaliland waa macallin bare suugaaneed oo dugsiyada sare ee dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay wax ka dhiga saad hore soo sheegtay waa aabe ku dhaqan magaalada Hargeysa abshir taariikhdii ururkiiba urur dhanka arrimaha bulshada oo walalayana waa ka mid ahayd kale aan gudoomiye ku xigeenka ahay urur la yiraahdo Mahuraan oo arrimaha bulshada iyo dadka tabaalaysan caawiya okay de mukhtaaro si dhow iyo si fog ba arrimaha bulshada wada xidhiidhayo abwaan baato macallin baato ururkii arrimaha bulshada ka shaqeynaya ku jirta bal intaynaan qaybaha kale ee barnaamijkeena u guda galin bal xaalad guud baan doonayaa inaad naga siiso bulshadu waqti xaadirkan xaaladda ku sugan tahay iyadoo dalkan ay isku ognahay xaalkiisa wallahi Khadar waa nolosha imika dhabta ah ee bulshada taala haday taabano waa nolol runtii naxdin ay kala soo kulmayso mararka qaar marka aad u kurgasho qoysaska gaar aad hoos u wareysato waa nolol aanay dadku aynu oran karno de isku filaanshiyo ma laha waa nolol aan inta badan qofka ama qoysaska xaafadaha magaalada Hargeysa marka inta kala dalka laga reebo magaalada Hargeysa oo kaliya oo caasimadda dalka ay xaaladda ku nool yihiin indhaha lagu hayn kareyn xaafadaha qaar baan dabka loo shiday maalmo cidna ogey absolutely way jirtaa ma filayaa waxaad sheegto dhan bal dhanka amal la'aanta ee magaalada ka jirta iyo dhalinyarada runtii see kula muuqata basli amal la'aantu way baahsan tahay abaara dalka soo noqday dadkii qaar miyiga xoolaha kaga madheen magaaladii mid magaaladii u soo amal doontay magaalada laftarkeedina wax ay ka helaan iska day iyagii wax uga baahan wax looga baahan ayaa dhacda wallahi dee shaqo la'aantu dhalinyarta wali xoog u sii saamaysa ay jirta aad bay u jirta marka aad wax soo barto oo soo baxo wuxuu baahan yahay inuu sidoo ku fikirayay si ka duwan buu kula kulmayaa bulshada dhexdeeda ama noloshii magaalada tiina waxay sababaysaa in uu isagii ama qaar fikira ay noqdaan oo in uun wax qabsan kara qaarna ay sidaahdaan dalka ka baxay yatana waa tahriib inta badan keenta mukhtaar dhanka macallimiin jaalina haswa ka weydiiyo bal arday badan baad soo saartaan ama dawlahaado ama private xukuumaduna umay jaangoyneen meelo shaqo banaan ka helayaan dhalinyarada xaaladoodu miyaanay ahayn mid la dayacay baa u muuqata wallahi dhalinyarta aan soo saaray ee aan wax soo barno waxay kulli waxay hoos fadhiyaan waa dawladooda wax ka sugay dawladdiina ajande kama yeelan cad oo dhalinyarta ay ku jahayso marka soo bartaan wadarta kumaankum baa ka soo baxay jaacada na loo maahay taasina waxaan u arkaa qorshe la'aan xagga dawladda marka dawladdu waa tan imika bilowday qorshihii shaqo qaran ee lagu xareynay la xariijinayna sanadada dambe inuu xun ka soo ruux badan inay yeelan doonto insha Allah wanaagsan baynu rajeynaa insha Allah inaguna rajeynaa in bal isbedel iyo si san dhaanta aan diga ragno mukhtaar bal xagga macallinimada iyo xagga abwaanimada ka wada doonta kullay markuu macallin horta dhigid iyo dhihid baa la kala yahay marka ugu horeyntii aanu dhihidan ku horreeyay dhihidna wax oriyo gadaal baan macallinimada ama baraha
adkati aan soo galay oo nina wax dee wixii aan aqaanay aan bulshada u faa'iideeyaan doonay laakiin dhigidda ayaan ku horreeyay aad ku wareysay laakiin ka dhigidda waa isku dhaxwada in kastoon xooga saaro inaan dhigo dhigidii bay iskugu biyashwato kulli markaad dhigayso kama maarmaysid absolute muxtaaro waxbarashadu kor u qaadka bulshada iyo kobaca dhaqaale ee bulshada yeelato door noocee ka ciyaartaa basle waxbarashadu absolute waa de waxbarashadu waa heerka ugu horeeya ee bulshada kor u qaadi kara bulsho bilaa aqoon horumar ma gaadho oo waxaanaynu tiknoolajiyadana arkayna de waa aqoon bay ku timi de ilaa nabigeena bay nagu dardaarmay calayhi salaatu wasalaam inaan aqoon absolute dhiiri gelinayno barano absolute maadiyo diini labadaba good way inaan wax barano waa muhiim ma eraya ma ka tiro ma ka maansooday maasooyin oo kale waxbarashada laakiin waxaan ka cudur daaranay goobtan maanta inaanan inoogu haynin ama aanay inoogu diyaarsanin absolute maadaama bulshadiisa dadban iyo si toos baad ugu dhex jirto bal waxaad iiga warantaa laba qistooyin oo dhanka waxbarashada oo arrimaha bulshada ka hadlayo ku soo maray haddii aad wax un xasuusato insha Allah niyo waxa jirta waxaad arkaysaa arday aan fiigi bixin karin absolute laakiin aqoon leh oo waxa aad adigu barto aad ka helayso absolute iyo qaar yahay hanti siiyay wixii aad barteen aad ka helayso oo barakaysan aad iyo marka waxaan bulshada Soomaalida iyo ummadda muxsiniinta aan aad ugu dhiiri gelinay dadka danyarta iyo dadka ugu aqoonta jecel inaynu gacan qaban absolute maasooyin waxa jira aad leedahay waxay soo jeestay maaso ka sheekanaysa bacda oo dhawaan la mamnuucay barinteeda maasadaasi u gelin maxay faa'iido bulshada u leedahay maxay seen faa'iido u lahayn bulshada qadar waa xusuustaada maasada bacda waqtigii dawladii madaxweynihii hore Siiraanyo ayaa wuxuu jaray ama wareegto uu ku soo saaray baash bacmikada in la gooyo runtii bacmikadu dhanna faa'iido bulshada uga leh dhanna kama laha dhanna khasaare kale ama khasaarihi waa batay ama faa'iidada ha badatay runtii aanu saan istusayo de waxay u qabataa danyartaas aynu ka hadlaynaa bulshada danyarta in awoodi karin wax jumlada soo xiran oo kompleta ama dhammaystiran inay iibsadaan de meheradaha yaryar ee xaafadooda ku yaala way u xirxiraan taasina waxay u faa'iido u tahay inuu reerkii helo dhanaan iyo udgoonba cuntadoodii oo qiimo yar ku helo laakiin marka bacda la jaro reerkii waxay noqonaysaa inuu iibsado salahan maraq digaag oo kale bogas isku xidhan biibsanay oo ka cadcad baynu ka hadlaynaa ama ka milixda oo yaqaanaan dumar gurgurtoo kale qasaacad ama tamaandho qasaacda baasha laga gurgurtay daasada ku jirta reer ma iibsan karo dan yar oo inuu ognahay oo wuxuu soo helaaba iska yar waan xirkaa laakiin marka loo xirxiro ama 500 iyo wax ka yar baa la xiri jiray waqtiga 200 oo shilin baa la xiri jiray imika ma jirto wax 200 lagu iibsado 500 baa baday imika 500 baa dabar jarkeedu si aynu arkay oo kun baa ugu yaro isaguna waxba goyni waranta marka de waxay faa'iidooyin dhinaca way kala marka waxa bulshadii qaybtii jilicsaneyd faa'iido leh dhinaca khasaare kala absolute waa xaq madax absolute xididada hadday ka qabsato biyo ka xiraysa qurux baad moodaayo dhirta caleemihi hadday ka dhirta waxaynu ognahay saynisku inuu leeyahay waxay ka samaysataa caleenteeda ay cuntada ka samaysataa dhirta absolute deetana marka caleentii fuusho ay ku maranto cadceedii markay ka qabato dee geedku dhimanay xoolihii baa cunaya iska daa kuwii baddii bay tegaysaa intii daadku ka deetana kalluunkii baa cunay caqabadna xaggaasay ku leedahay absolute dee faa'iido marka waa labadiibaas garab dhigtay ها لبدي أسبوع بدي مركها مع الصلاة دحدي كل كل حيران صلاة لما صدا سوحي كوب بلا مسا بالشدة دي بسم الله إيري ما صدا بعضها جروجا بدي بعضي قبايا ضبا أنا قوم بريهم برهان أنا ترين صوب باق ورقه برتي أن فدي جيت كي بردية بردي ما يمن برقدي دور هاد داس كي بدار بركي يركيش بلارن يسوق هذا بيد بضد عن كشوا هوين كهذا كل هذا يقاني مركي قاش يقرأ دقيقة iyo budada way kala badan tahay budada yar marka budada yar absolute marka kiish ballaaran iyo soo qaada beer budada aan ku shubo waa dukaankii marka la hadlaya waa gabar baa ila hadlayso marka ii waramaysa ay maasada ka dhigan bacdi baa la jaray ilaatay absolute tan waxay tir bidixdeeda inay bicitaan la show hadalkii ku bood bul xanoo itiri baryahani dambaba imeeydan boqoreen baaq dabar jaraad baahiseen dhamaan maxaan biyay ee bedelkii ku yimid bacdi hadda soo bacdi baa absolute maxaan biyay
bedelkii ku yimi maxaa lagu bedelay abshir anigoon ka baqan waxaan idhi bac yahay bukaan baa tahoo kasalkaa batee bushimaha ku dhace loo waayey baan iyo qaar ka badan adigoo bu iyo bartamo uhoo kaa soo baxa abshir waxaana uu tiri ilaa aadan baan abaalkaa bixina bartankuugu jira yar bidhaanso oo baladu waxeeg bariiskaad cuntiya baastada dhammaan iyagoo bisayl baylka ah baan u dhigaa bogay kuma baylahshee bartii aad rabtaan basre iyo basmiya u geeyaa burhaan abshir waxaan idhi bac yahay beledkaygii hore barwaaqu ahaa abshir dhirtaa noo badnayd maantana buskiiyo boodhkaa ka kaca ubax baad u tahay bilcilkiya mara xididada baxee balliyada tagee soo qaada badi xareeddaa burqani adigaa bac yahay isku maray bartaa markuu saa baryana biyeli ku jiro laamaha isbarkadaa bulxana uu tidhi dhirtaadii badnayd way ii jawaabaysa bulxana uu tidhi markaa bulxananaa isku matalaya abshir bulxana uu tidhi dhirtaadii badnayd markii aad balwiyo buuri baratayee badhna aad shiday saaxiibaado adaa baabaashay baad ka dhigtay istifaaca oo dhuxulaysataad noqotay abshir marka iminka waxaad arkaysaa deegaanadii miyiga abshir dhirtii baa la shiday dhirtii markii la shidayna waxa ay dadkii ku bedeshay inay qaad ku cunaan abshir abshir adaa baabaashee bartankuugu jira yar bidhaanso oo baladu waxeeg haddaanay bac jirin qaar baahanoo bulshadaa ku nool xirxidhkaa batee baytimaal ah iyo halka may barteen bunka may cabbeen basbaas may heleen haddaanay bac jirin adoo baahanoo ban cidla ah ku nool kildhi iyo bilaydh aan bilaalo wadan babis haddaba biyaad igu shubtaa qodimo aan in badan ka fogayn bartaad baalashay sudhaa qaxwahaad bisay barqadaa cabtaaway oo shaha lagu karsadaa bacmiikada shahaad ku karsataa haddaanay bac jirin hablo biliclahoo baarkana tidco midabkoodu beed ka cad yahay bayaad bileej taa marsada waagii baryaba baraysan xulbaa ku jiro hablaha isku cadeeyo habliga adinka ku xidhanaya hayo haddaanay habluhu isku cadeynay bacdano hablahan cad mid aragteen bileej taa marsada waagii baryaba ma baridiseen waxaan idhi bac yahay adhig iyo baraad baqli iyo fardii beerkoodii baad bartanka u gashoo balaloo dhammaa beerihii hadhuudh bidingaalka iyo baytaraafku badi ay ka bixi jireen waad ku baahdayoo markuu roobka bari fadka buruurshe ee carradaan bedelay ku bilbilay inin hubuucna barkado way soo baxdee baaqbaaq markaan biraha u gurtaba tiiyoo ba'daan dul tagaa bac yahay way hadlaysaa weli tiiyoo ba'daan dul tagaa bac yahay bulxana uu tidhi wax kastaa beryahan way soo bateen waxaad baal martaan kuu bidhaamiye markay laba bogiyo beerka iska jecel sheeko baahdayoy berye soo wadeen ay uubaar yaraa waxaa tahay barhkay ka fog buluqsatiya basarida haween gaari bilic lehey beydkiinni baan bishan imanayaa lacagtuu ka bixin haddaanay bac jirin mabusti ku gay markaynu hablaha doonayo waxaa lagu qaadaa bac baa lagu qaadaa timin madoobada ha markaad haddaba inan guursanaysa haddaanan anigu joogin meesha ku qaadi mabustaad ku qaadi doontaa mabusti ku geyn haddaanay bac jirin mabusti ku geyn kiina baahanay qarafaysi baxa malaa imika ma jirto dawarsadayaasha xaafadaha soo mari jira aroorta hore laxooxda la siin jira imika way malaha sii yaraanayaan dee hudheelada magaalada kiina baahanay qarafaysi baxa lacag lama baree burkaad siinaysaan baabacadu may bulxana wax tiri waxaan idhi bac yahay hadal badanayda maqareen bukaad beriya soo ahay kii baahanay qarafaysi baxa sibraar buu la bixi saantaa barhkeed sheekadan ba'di way ballaadhatoo badaha kortoo buuraha gashaye intaanaan bambiyo kugu ridin boqol baasuuka iyo bunduq kugu haysan bal haldoorra bilan bahdii gabayaqaanaan u baaqabee dhuxul baasha sare ka soo bedeli barhka xasan barre u sheeg axmed maasadii bulsho aad ku tiri soo dhiga badan waan qayla dhaandarsaday oo baash markan ka badin kari waayey nimankaanu asxaabta nahay xasan barre ducaaley nin la yidhaahdo cabdiraxmaan cabdiraxmaan dhuxul axmed maxamed aadan axmed jacayl dhammaantood halkan aan ka wada salaamay ayaan u baaqay sheekadii waxay noqotay in nimankii ay horta soo galaan oo silsilad la yidhaa ay noqoto oo
oo ilaamka jirta aadiya laakiin maaso iyadoo maraysa ay ugu wardambeysay silsiladaas laakiin maasoonka ma soo bandhigtay bacda kaabas waa weli way sii jirtaa aadiya weli maanu kala bixin dadkaas aan leeyahay warbal kala gaadhay abuurka kale daawan doonaba absolute muxtaaradu ma san tahay bal hal su'aal ma jeclaan inaan ka weydiiyo oo arrimaha bulshada weli ku saabsan bulshadu markay dhiiri gashan tahay ay xagga maamulka dhiiri gashan tahay maxay soo saaran kartaa maxay se noqon kartaa bulsho nooceeya dadka Soomaalidu waxay ku fikiraan in reer Yurub gaadhaan absolute haddii markaa la dhiiri geliyo kuwa ay ficadaba wadaafi lahayd waxaanay soo saari lahaayeen waxyaabaha aynu la yaabnay wax ka mid ah telefoonada oo sidee war isgaarsiinta internet qofka jooga Mareykan sidoo imika codkayga u maqlay sidee TV-ga badda aslayga daawanaya meel walba taasi isweydiin waxa ay wax ka daran bay soo saareen hadii bulshada xukuumadeeda iyo shacabkaygu intay qabsadaan la isdhiiri gelinay oo qisayran ku sii khadraween mariidka waa sunta la marin jiray warmaha iyo fallaaraha Soomaalida aad ka marin jiray waxay sheegaan qisooyinka Soomaalida raadraaceed nin baa soo saaray suntaasi waa dhirteenana la isku dardaray markii uu soo bandhigay suntana soo saaray waxay ku yiraahdeen bulshadii wala noolaa maadiga oo qabiilka nooca iyo noocaas tusaale ayaa soo saaray lama dhiiri geli wala niyad jabin waxay xaqiiqsan yihiin culimada ablaablaysa suugaanta Soomaalida iyo dhaqanka daba gashay haddii ninka la dhiiri gelin lahaa loo waxa soo saartay sun wuxuu keeni lahaa dawadeeda ha marka dhiiri gelintu waxay leedahay faa'iido fara badan falaadhasan ku xasuustay imika casri baan ku soconaa bulsho casri ku socotay noqotay bal dhaqankii hore Soomaalida iyo bulshada hadda ku noolay si la dhaqantaas u sii jira tusaale kooban baan naga sii dhaqankii hore imika waxaad moodaa in si looga sii guurayo oo hatta wax la yiraahdo ma jireen waa wada magaalada salliga ku wada fadhiya oo waxaad magaaladii war aanad ku ogeyn halka ayaad ugu tukaysaa waxyaabaha laga tagay waxa kamid falaadhii ba kamid ah leebkii iyo qaasadii lagu gabraaran jiray lagu gaarsan jiray bulshada ku gaarsan jiray ayaa laga tagay oo imika xabad baynu badasheelkeed warma gaashaan baynu oo aynu iskaga qaban jiray dhaqankii hore hodan baa aadiya dhaqankii hore mid la goyn karo ayuumahay bulshada Soomaalida aynu ku dhiiri gelinayno barnaamijyadeena dhaqanka waaga inay iyagana xagga arrimaha bulshada iyo dhaqanka wax kala maarmaya ma waaga abu waxaan ku noqon doonaa dhankii dhiiri gelinta bulshada ma soo aad soo xatraa dhiiri gelin bulshada jirta bal maasada say ku tiri ee ku timid iyo sababteeda maasada waxaan oriyay 2015 bishii 7/9/2020 waxay ku timi dareen baa igu dhaliyay waxaan ahay niman isku qoofanan niman isku kooxa halabuurkaan xagga ku soo xusayay qaar kale oo iga maqan urur u tur looran jiray ayaa waqtiga aanu iga furay deetana waxaan doonay inaan bulshada aanu ka wacyi gelino saddex arrimood qabyaalad qaadka iyo tahriibta saddexdaas oo bulshada saddex sida aad ka bulshada u rigaadiyay dhalinyarta markasta ay soo baxaan waxay ku higsadaan hebel inuu gaaro hebel oo Yurub tagay oo Ilaahay badbaadiyay inuu ku dayo hebel laba sawir buu soo galo qurux badan laakiin amal ma kuma hayo meesha laftarkeeda waxaan doonaan maaso kaga qayb qaato barnaamij aanu ku furaynay markaa inuu saddexda qodob kaga hadalno bulshada ku dhiiri gelino oo kaga reebno xumaanaha noocaas intii Ilaahayna garansiiyo waxaan markaa waraystay inaanu asxaab ahayn aan halkan ka salaamayo ninkaasi waa nin aqoon leh jaamacadii soo dhameystay wuxuu doonay shaqo inuu helo CV buu xareeyay ama waraaqaha codsiga wuxuu ku lifaaqay oo xagga sare kaga xiray shahaadooyinkiisii oo qurux badan qofku markuu shaqo markaa codsaday in la eego waxa uu soo bartay deetana waxay noqotay in loogu jawaabo intaan la eegin macluumaadkiisii iyo xogihii uu soo gudbiyay la weydiiyay hayb iyo qabyaalad oo la yiraahdo qolamaad qof kastaaba qabiil buu ka dhashay wad sheegaysaa qabiilka markuu dhaano waxaan nin noocaas waxa loogu jawaabay jawaabaan u fiirinayno lagu reehbil nadaafadda noo qaabilsan wala lagu jiraa positionka xaqiiqo dhab waxa ku yaala meeshii bisweydiyeen iskaga soo dhaqan markaad meel wax imka u doonato waxa aad isweydiinaysaa horta yaa kugu sii jira qof hadduu ku joogay inuu balgo hadduu oday kula socdo inuu laakiin haddana cidba kugu jirin ka meesha waxba kuma yaalan weeyaan iska soo noqo maasada sidaas ku soo dhawaad maxay oran sarka waxaan maasada ku bilaabmaysaa
maasada dhabtii layskama dhahee waa loo dhashaa anigana dhankay aabbihii i dhalay murti dhaadhi buu dhuxlow ahaa ninkaasan kusoo halqabsanaya cabdiraxmaan maxamed axmed oo magaalada burco jooga maanta aad baan u salaamaya murti dhaadhi buu dhuxlow ahaa maantana dhambaa igu dheerayaan dheegow sida dhalintiiyo dadkii dhulkii aadogayd ku dhaqnaa dhexdii dhowr dariiqa bay qaateen dhammaan noloshii ka dhacay dhalandhoolka dheer saxaraha dhankii qaar bow dhurtoo hilbahood dhurwaa iyo dhowr dugaag dharaaraya cunay cidna dhaadiga marka ay dhalinyartu inaga baxdo ee doomuhu ay ku qarqoomaan laysma weydiiyo haddii ugu badato waa haddii ay xukuumadda waktigaa jirta ay tiraahdo waxaanu ka tacsiidaynaynaa bulshadii dadkii ay ka baxeen dhan kaleeto waa dhaqankii hallow dhowr bay jarteen dhajiskay xidheen dawad dhilaysabay isku dhoobayaan hami dheer ma laha hadday inantu isku hesho dhar yaroo wanaagsan dawaday marsato xaafaddu siiso fikir iyagu hablaheeda ma laha hami dheer ma laha adoo dhudi ahaa dhool ma noqon kartaa qofku siduu ilaahay u abuuray si ka duwan ma noqon karta anigu mukhtaar baan ahay maanta anigu de khadar dhambaal ma noqon karo mukhtaar uma lahaan karaya adoo dhudi ahaa dhool ma noqon kartaa qayb kale dhabtii cilmi bay dhigteen dhuuni iyo cuntiyo dheef ku raadiya dhuuxoo ku markaad cilmiga barato waxa ugu horeeya horta ku deydaysa waxaad soranaysaa bal shaqo ku hel horta inta ugu dee dhawaynta dheef ku raadiya dhuuxoo ku xafiiskay dhigaan codsigooda dhilan ay dibloomaduna kaga taal dhan sare lama dhaado oo ruuxna dhaayihii kuma dharirshabe su-aal sidan u dhigan yaa lagu dhahaa dhankeebaa degtaa haddaan imika kula khadar u dhankaa degtaanod ii sheegto kuma sii dayday iyo reerkiina waan ku garanaya oo magaaladii imika astaamo kala astaan weeyaan ha waa astaano dee imika waxaa baad arkaysaa in gawaarida laftarkooda lambaradii lagu dhajiyey astaan ku noqoto calaamad noqoto deegaanka kasoo jeeda ha deegaanka kasoo jeeda waa la garanaya yaad ka dhalatay waa hooyadaa dhankeed laandheer miya haddii adiga haybtaada ay ku jiri weydo meesha dee balin abtilgu yaha la yar daydaya hooyadaa dhankeed laandheer miya dhakadoo qabsaday dhinacyadiisa eeg yaad ku dhaadataa dhowr jeeri siri ka dhaqaaq bartii waxaan laga dhargeyn dhuux iyo laftiyo dhiigiyo jidhkana kaa dhiga daciif dhaqdhaqaaq wadnaha dheeraadshabu gowskiisa dhigay qaraarkii dhadhami waktiguna ku dhaafay ninkii hamiga lahaa ee soo bartay aqoonta ee islaha ku shaqayso markii su-aalahaasay ku yimaadeen ee cidna waayey noloshiibuu ka dhacay deetana inuu qaylo noqdo sidii ugu daa noloshiibuu ka dhaco qaylo afartaa dhambaal iyo dhehetinkay dhan kaleeta waa afartaa dhambaal iyo dhehetinkay dhan kaleeta waa dhiirigeli bulshada qol dhalaalayo kursi dhex yaal maad dhaaftidoo dhexda xidhatidoo samirkana dhankaa aad ka dhaabtid hoy waxaan leeyahay bulshada weliba ardayda markaad wax soo barataan ha ku hamiyin inaad adigu xafiis soo fadhiisato adigu markaa laguu shaqeeyo laakiin adigu noqo kii abuuri lahaa horta shaqada markaasaad gaari doonta xafiiska samirkuna waa shay muhiim oo diinteenu aad inoogu dhiirigelisay inaynu samirno samirku waa qayb ka aad iyo marka inuu qofku ku samro oo isagu u samro ayaan halkan ay maasada dhiirigelinaysaa cad ka dhaabtid hoy adoon dhoofin oo dhul shisheeye tegin sidee baan dhigin ugu dhararsanaa baladu wax dhow dhirta hoos u eeg dhigridiya miyaan dhafaruurta iyo dhicirtiya madheedh dhiintacabka wacan dhosoq iyo galool iyo cibtiyo dhasayn dhamastiyo maraa maan dhowranoo maan dhigana beer maan dheeha iyo dhiinow sacii aan dhaqano oo dhayda iyo subag aan dhitaysanoo dhoofina iyaga xoolaha inaynu dhoofin dhabarta koobaad xoolaheena weeyaan baa leedahay hooyadaa ha dhibin dhaqaalahoo bataa dhulkanuu dhex yaal dhagaxaasi jebi dhigay maansadee allahayowna dhow halkaa waxaa ku jirta dhagaxaasi jebi dadka qaar baa dhagaxa ka shaqaysta oo buuraha dhagax lagaa ka noqdo warniyo imika dee 2015 baabay ahayd maansada imika waba laysku soo dhigto waxaa timid cagaf dhagaxii jebinaysa bal dadka shirkadaha la soo degana ay hoos u eegaan bulshada iyo dadkii hawshaas ay qayb dhagaxa ku noolayay mukhtaar hadda intaas sir kaga nimaadno maansooyinkaasi iyo bal saameyntooda waxaan jeclaa in nala wadaagto bal waxyaabihii kugu la yaabka badnaa inta bulshada ku dhex jirtay kaa hor yimaada
ku aragtay bulshada dhexdeeda wallahi khadra waxa iigu la yaab badnaa horta marka la yiraahdo maxaa kuugu la yaabnaa waxyaabo badan baa ka hor imanaya laakiin waxyaabaha qaar baa qalbigaaga ka gooy habeenada kamid ah waxa iigu yaab badan marka la yiraahdo dhalinyarta waxbarashada qaybta caafimaadka soo baray marka ay doonayaan inay qalin jabiyaan waxay sameeyaan qaybo kamid ma aha dhamaantood qaybo kamid waxay sameeyaan isbitaalka dhimirka intay booqdaan in maalinta wax loo geeyo dabadeedna la isku soo yar sawiro dib aan loogu waxay igu yaab badnayd markii inuu wiil dhalinyarta nooca kamid ah intuu yimid ugu waxaan u baahanahay maasay inaad ii curiso bari baan ka soo qayb gelayaa xaflad noocaas ah dhakhtarka dhimirkaan u geeyay dawooyin iyo alaab marka aan ku siiyo xuquuqda maasada laakiin maasay si damiirkaygu uu qaadan kari waay qofka baahan qofka waalan waa qof baahidaada kale waliba ka baahi badiyay adoo maydhata wad sagaajisaa laakiin isagu dhimirkii Ilaahay baa ka qaaday oo baahidiisa ayaa aad u badan 365 cisho weeyaan sanad markaad maalin siiso 364 cisho soo har baahidiisa halkay isaga taala taasa aan maskaxdayda marnaba ka go'ay abshir waxaan ku hayaa iyaduna maasan laftirkeeda tiraayan abaal waa dhaxal oo ka hadlaysa dadkaasi dhimirka maasadaasi bal maxay wadaasay maasadaasi sheekada aan ka sheekeynay laftirkeeda ayay xiriir la lahayd oo isku dareenayeen waxa ay maasadaasi ka hadlaysaa un dadka waalano horta shayga abaalka leeyahay oo waxaan duugoobin aan harina abaalka had gashaana hadad adigu u hay weey ubadkaaga ayaa ay qof walba wuxuu jecel yahay inuu marka abaal oo dhigto oo sifo wanaagsan bulshada Soomaalida dhaqaniyan waxay caado u leedahay waxyaabaha qaar inay ay ka fogaan jireen bakhaylka way ka fogaan jireen tuuganimo in lagu sheego way ka fogaan jireen fuliga way ka fogaan jireen astaamaha noocaas waxay uga fogaanayeen wax wanaagsan baan ahayn inagana bulshadeena waxaan ku dhiirigelinayaa maadaama aynu nahay ummad muslima dadka dhimirka iyo dadka baahiyaha gaarka ah inaynu si gaar ah uga fiirsano waxay maasadan ku bilaabmaysaa dhar xariiriyo guri dheer iyo dooni cunidii barbaan dheefane baldhankaaga iyo dhinacaaga aayar u dhigo intee dhibanaya xiskood dhiman yahay intee dharginaya bogaa isku dhagay intee dhudhunkood silsilad lagu dhigay ee aan dhaxamaha cabdow dhacayana waxay dhul dhigtaan dhankoodani ool markay dhamacdiyo kulay dhacayaan dhirtaa laga galo kuwa dhilanee cagaa ku dhex mara dhammaangayga raamo dheer iyo uskag dhar u yahay miyaan dhimirkiyo dhalaal midabkuun inuu ku dhibayn miyaan dhimirkiyo xiskaa ku dhahayn ruuxna uma dhalan qofna dhinacii dhib ma iibsana rabbaa ka dhigay war dhibaatada ha isku dhaafina haddaad eregteen dhab u gamaadeen qaar baa dhiman oo dhanna noolayn oo aan dhaayiyo dhimir saxa iyo lahayn dhagaha wax kastaa dhace aynu dhudiyay dhexda xidhan oo dhanka aakhira waxaan dhiganne dhammaan kaalaya dhabu fiirsada niyadan yaan la dhiibine dhilal caaniyo dhayda tawacan hala garab dhigo yaan la dhayalsano yaan la dhaafine dhamacda cadaab yaana loo dhuran dhaqankeennii yaan la dhala rogin dhudhun keliya dhir ma jari karo mahmaaba halkaa odhan jirtay dhudhun keliya dhir ma jari karo farna dhoolaha dhab ma maydhee war dhibaatada ha isku dhaafina far keliya fool ma dhaqday Soomaalida ku mahmaahi jirtay war dhibaatada ha isku dhaafina abaal dhigataa dhaxalkaa gala oo dhalaankiyo ubadka dhali ay ku dhaashan marka waxaan bulshada aad ugu dhiirigelinayaa dadka waalwaalan inay ka fiirsadaan waxay qabanayaan fariin kale meel ku duuganto wixii aad qabataa aday ku taalo si aakhiro ay kuugu tarto awan maan aad baan kaaga mahadcelinaa qaybtii u dambeeyay barnaamijkeena ayaynu soo gaadhnay san jecelahay barnaamijka ugu dambeeyay jecelahay adoo ka faa'iideysanaya fursadda barnaamijka iyo TV-ga badda maxaad ku soo gabagabeynayay bulshada meel ku nool ee horumar iyo sidoo kale waxyaabaha ku baraaraan ay ku gaari karaan waxaan marka hore kaaga mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba adiga iyo TV-ga badda qadar
waxaan bulshada uga faa'iideysan lahaa jaaniskan maanta aad siiseen in waa marka koobaad ee qabyaaladda iska ilaaliya horta iska ilaaliya dugsi mala qabyaalad waxay dumisay mooyaan wada halkan ka helay halabuurkeennii hore Abdullaahi Maxamed Suudaanti waa talabaad qof kasta oo warfindhicil ha ahaatee wax sameeya aan dhiirigelin oo ku reeb istaagin oo aynu noqono inagu kuwo iyagu ku foorarsada dalkooda taasaynu wax ku noqonayno dhaqankeena horna soo dhaqankii Soomaalinimada iyo bulshadeennii hore si u dhaqmi jirtay ee wanaagsanayd ee xididka iyo xigaalka iyo sooriyada iyo gacalka balahay taana hal dhiirigeliyaan yaa laga guuray oo yaan laga guurin dhaqankii Soomaaliyeed aad u maasantay daawadeeshada qiimaha qaayaha qadarinta iyo xushmada wanaga inta waxaan ku soo afmaranaa guud ahaan barnaamijkan arrimaha bulshada oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay xaaladda dhabka iyo sidoo kale waxyaabaha ay ku nool yihiin bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa toddobaadkan barnaamijka waxaan ugu martihaa isla markaasina si aad loogu mahadcelinaa aniga iyo hawlwadeennada kala duwan ee barnaamijkan ku hawlanaaba ay u mahadcelinayaan waa abwaan macallin Mukhtaar Xeego oo leenahay aad u maasantahay abwaan waan ugu khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaala iyo sidoo kale kamera qaade Cabdirashiid Faahiye iyo sidoo kale Ibrahim Joog horoni laanta barnaamijkan barnaamij la kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh